aan ku horeyna xeer ilaalinta guud ee magaalada Bologna ee waqooyiga gobolka Emilia Romagna ee dalka Talyaaniga ayaa dalbatay in 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo Ethiopian lagu soo ogo dacwad la xiriirta maalgelin jihaad iyagoo lacagahaasina ka soo saaray falal ay ka mid yihiin taariibinta dadka ka yimaada Afrika ee sida sharci darrada ah ku gala Yurub. Jacfar Kukay ayaa warbixintan noo soo jeedinaya. qoraalka eedaynta ah oo ay soo saartay gabadha lagu magacaabo Antonella Scandilari oo ah xeerlaaliyaha magaalada Bologna iyo madaxa dacwad oogayaasha Giuseppe Amata ayaa eedeysanayaal ka dhigaysa 2 nin oo Soomaali ah oo lagu kala magacaabo Rashid Dubad iyo Cabdiqani Cismaan oo da'dooda lagu kala sheegay 23 iyo 30 jir iyo 2 kale oo Ethiopian ah oo magacyadoodu ay kala yihiin Ciisediin Axmed iyo Saciid Maxamed oo 3 iyo 20 jir ah. 3 ka mid ah 4taasi qof ayaa xabsiga horey ugu sii jiray halka midka afraadna uu xabsi guri ahaa. sida ku cad warbixintan oo ay daabacday wakaaladda wararka Talyaaniga, raggan ayaa la soo qabtay 29 May sanadkii 2019 waxaana lagu soo eedeeyay dembiye kala duwan oo isugu jira maalgelin argagixiso iyo fududayn safarro qarsoodi ah oo dad Afrikaana lagu geliyay wadamada Yurub. Ciisediin Axmed iyo Saciid Maxamed oo Ethiopian lagu sheegay iyo Rashid Dubad oo Soomaali ah ayaa si gaar ah loogu eedeeyay maalgelinta howlgallo argagixiso. xeerlaalinta ayaa sheegtay in lacago ay ururiyeen una direen si ay hub iyo saanad ugu iibsadaan xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta iyo ururka ONLF ee ka howlgala Itoobiya kaasoo ay xeerlaalintu argagixiso ku sheegtay. ururka ONLF ayaa si sharci ah uga howlgeli jiray wadamo badan oo Yurub ku yaala. xilliga ay dacwadani soo baxaysana dowladda Itoobiya ayaanuba ugu jirin liiska argagixisada. waa kan Cabdiraxmaan Sahal oo ka tirsan xarunta Soomaaliya ee falanqaynta musiibooyinka kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga geeska Afrika. inuu ahaa urur wadani ah oo Yurub oo dhan iyo Mareykanba ka jiray oo lagu soo diray argagixisada. midda kale waxaa muuqatay in ururkan uu heshiis la galay Ethiopia 2018 kadibna uu noqday xisbi ka diiwaan gashan hay'adda diiwaangelisa axsaabta Ethiopia oo markaa xisbi siyaasadeed Ethiopia uu noqday. Ethiopiana uu la heshiiyey. Ethiopia ay liiska ka saartay cunaqabataynta iyo argagixisada ay ka saartay. ONLF waxaa argagixiso u yaqaanay oo u diiwaan gashanayd 2018 inta ay la heshiinin oo bisha August ka horeysay inta ay la heshiinin. Ethiopia waxaa argagixiso u yaqaanay Ethiopia. waxaa kaloo liiska argagixisada ku daray Soomaaliya oo berigii qalbi dhagax la dhiibay kadib ay xukuumadda Soomaaliya ay fadhiisatay soona saartay in ururka ONLF iyo urur argagixiso ah oo khatar ku ahaa amniga geeska Afrika iyo Ethiopia iyo Soomaaliyaba xiriirna markaas la leh ururka Al-Shabaab. marka Soomaaliya ma ka saartay liiska argagixisada? waxaa jirtay baarlamaanka Soomaaliya inuu fadhiistay oo ka soo qaaday go'aankii xukuumadda inuusan ahayn wax jira, laakiin xukuumaddii soo saartay oo markaas warbaahinta la hadashay intay fadhiisatay mar labaad qadiyadda qalbi dhagax iyo ONLF mayna ka hadlin. galka dacwadda ay diyaarisay xeer ilaalinta magaalada Bologna ayaa lagu xusay in lacagta ay direen oo gaaraysa ku dhowaad 7,000 oo euro oo u dhiganta lacag ku dhow 8,000 oo dollar uu mid ka mid ah eedeysanayaasha qaab mucaawino ah bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 uga qaatay dowladda Faransiiska maadaama uu ka yimid wadan ay dagaallo ka socdaan. mid ka mid ah 2 qof ee Itoobiyaanka ah ayaa la sheegay inuu ururiyay ku dhowaad 2,800 oo euro oo u dhiganta wax ku dhow 3,200 oo dollar kadibna uu u diray dad Soomaali ah oo aan la garanaynin halka kan kalena uu dhowr boqol oo euro uu si joogto ah ugu dirayay Soomaali aanay suurtagelin in si buuxda loo aqoonsado sida dacwad oogayaashu ay qoraalkooda ku sheegeen. raggan ayaa ka kala shaqaynayay gudaha Talyaaniga iyo dibaddiisa intii u dhaxaysay Sebtembar 2018 ilaa bishii May 2019. labada Soomaalida ah iyo mid ka mid ah Itoobiyaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inay ka shaqaynayeen tahriibinta dadka iyaga oo muhaajiriin lacag kaga qaadan jiray inay si sharci darro ah ku soo geliyaan Talyaaniga kadibna uga sii daabulaan wadamo ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub.
dacwadda ay xeer ilaalinta guud ee magaalada Bologna ee dalka Talyaanigu soo gudbisay ayaa lagu xusay in howlahaasi ay ka kala dhaceen magaalada Milano iyo magaalooyin kale oo Talyaaniga ku yaala iyo dalal ay ka mid yihiin Switzerland iyo Austria laga soo bilaabo horaantii 2018 ilaa bishii May sanadkii 2019. mahadsanid Jacfar Kukay.